waxaa sharaf loo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno xafladan quruxda badan ee halkaan lagu agaasimay looguna talagalay in raggan iyo gabdhahan qiimaha badan ee ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan danab tababarka uu ugu dhamaaday loogu talagalay waxaad mudan tihiin sharaf sababtoo ah waxaad dalkiina iyo dadkiina u go'aansateen inaad u hurtaan naftiina taas wax ka dambeeyo oo qof bani aadam bixin lahaana aysan jirin danab waxay ku suntan tahay guud ahaan in maaragtaa ay qaranka Soomaaliyeed uga aaday howl muhiima oo xaqiiqdii aan dhihi karno sanadadii ugu dambeeyay shaqadii la qabtay oo ugu barakaysneed ahayd ee la dagaalanka khawaarijta waxay hormuud ka ahayd dagaaladii laga soo bilaabay Hiiraan ka horna shaqooyin adag ayay haysay laakiin shaqooyinka ugu dambeeyay ee ay qabatay waxa ugu muhiimsanaa tii Hiiraan laga soo bilaabay ilaa maantadan la joogo la dararka khawaarijta la waday danab waxay ka ahayd hormuud waxaad ku weydeen oo ku shahiiday rag aad u qiimo badan oo uu ka mid yahay xeradan rijaalkii loogu magac daray ee Xasan Tuure magacaas iyo maamuuskaas danab ay ku leedahay gudaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaad ku soo biirteen waxaan rajaynayaa meeshuu hadda joogo meel ka sii fiican inaad gaarsiin doontaan guud ahaan xukuumadda walow uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka joogo waxaa awlawiyaadka noo ah anaga in dalkan khawaarijta laga xoreeyo tiirka koowaad ayayna noo tahay dadka ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku dhaaranayaan waa ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada specialka idinka iyo gorgor iyo ciidamada la midka ah marka la leeyahay dal ayaa la xoreynaya duruufo badan ayuu leeyahay waxyaabo badan laga yaabaa inay idinka dhinaadaan waayo dalka ayaa dib u xoreyn ku jiro waxa laga yaabaa adeegyadii asaasiga ahayd qaarkood in la waayo laakiin qofka markuu ku jiro halgan oo dadkiisa iyo dalkiisa xoreysanayo wuxuu ku qasban yahay wax walba oo suuragal ah inuu ugu shaqeeyo adinkana waxaad qaadateen go'aankaas geesinimada leh oo waxaad u xirateen dareeska in duruuf walba aad ugu shaqeysaan qarankiina waa idinkaga mahadinaynaa sidoo kale waxaan rabaa in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaan uga mahad celiyo dagaalka muddada lagu jiray ee qiimaha badnaa ee shacabka Soomaaliyeed ay inta ugu muhiimsan nagala qayb qaateen inaan uga mahad celiyo halkaan hooyooyin ayaa idin dhalay oo go'aansaday inay idin soo diraan inaad ciidanka ku soo biirtaan iyo aabbiyaal walaalo iyo xaasas ayaad leedihiin intaa waxay maaragtaa qayb ka yihiin dadaalka khawaarijta lagula jiro sababtoo ah adinka ayay idin soo baarbaariyeen markaad da'dan soo gaarteenna qaranka ayay idin hibeeyeen sidoo kale waxaa jiro shacab Soomaaliyeed oo qoryaha qaatay oo maanta furimaha aan ku dagaalamayno qayb ka ah dagaalka qorigiisa xoolihiisa kula baxay geeliisa ama arigiisa ama wixii xoolo lahaa uu kula baxay saasoo ay tahayna mashaar qaadanin dagaalkan furinta hore uga jiro qofkaas waa wadani dhaba waana maaragtaa shacabka ay dadka Soomaaliyeed isku haleynayaan dhabarkana maaragtaa xaqiiqdii la xijin kara waa ayagana aadaan ugu mahadinaynaa waxaa jiro culmaa'udiin Soomaaliyeed oo iyagana kaalin aad u muhiima ka qaata la dagaalanka khawaarijta waxyaabaha maanta aan ku dhaaranayno ah in khawaarijtaasi dilkoodii iyo qabashadoodii iyo wax walba oo lala tiigsanayo diinta islaamka ayaa banaysa haddaynan culimadeeni ahaan lahaynna cilmiga intaas la eg nama soo gaari lahayn waan uga mahadinaynaa fatwada ay soo saareen labadii sano ee la soo dhaafay ee ummadda Soomaaliyeed iftiinka u bixisay in lagula diriro khawaarijta waxaan rabaa inaan sidoo kale halkaan uga mahad celiyo
beesha caalamka oo na garab istaagtay oo maanta ay nagala joogaan dowladda Mareykanka ay ugu weyn tahay oo xaqiiqdii inta lagu jiray la dagaalanka khawaarijta na garab taagnaa welina na garab taagan kaalmaysana danab guud ahaan tababarkeeda iyo logistikadeediba maanta xaaladda aan ku sugannahay darteeda ay nooga caawiyaan waan ugu mahadinaynaa sidoo kale waxaan ugu mahadinaynaa kaalmada cirka ayna siiyaan oo xaqiiqdii ah kaalmooyinka ugu muhiimsan ay ugu dambeysay xalay buuraha maaragtaa Puntland ku yaala xalay wixii ka dhacay waad maqasheen in khawaarij tiro badan oo daacish u badan halka lagu duqeeyay awood aad u tiro badanna lagu duqeeyay ma haddaasna waxaa iska leh dowladda Mareykanka oo xaqiiqdii aan ugu mahadinayno sida ay noogu garab taagan tahay la dagaalanka khawaarijta waxaan kaloo rabaa in sidoo kale halkaan uga mahadceliyo madaxda qaranka oo har iyo habeen na garab taagnaa na hor socday haddaan nahay wasaaradda gaashaandhig iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddaysan ahaan lahayn aragtidooda iyo garab istaagooda iyo tilmaamahooda haddaysan ahaan lahayn ma suuroobeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo jeclaan lahaa inuu maanta meeshaan joogo iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre labadaba waxay maaragtay hormuud noogu noqdeen naftoodii ay halis u geliyeen in khawaarijta lala diriro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna garab la siiyo goob walba uu joogo waxa laga yaabaa furimaha in badan inaad ka daawateen madaxdooda taagan duruufo kala duwan ku taagan ayagana waa u mahadcelinaynaa waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo xaqiiqdii inta shaqadan ay socotay siyaasi walba oo xubin ka ah deegaanada uu ka soo jeedo iyo si guudba marka laga hadlo arrimaha ciidamada ama ha noqoto arrimaha budgetkooda ama ha noqoto duruufaha ay ku sugan yihiin mar walba garab taagnaa ayagana waan u mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan idin leeyahay dhalinyaro waxaad ku soo biirteen ciidan sharfan oo karaamo leh oo ummadda Soomaaliyeed dhaxdeeda karaamo ku dhaxleh waxaan idinka codsanaynaa ama aan idinkula dardaarmaynaa in karaamadaas la ilaaliyo waayo waxa la tacaalayo waa khawaarij u eg shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeedna dhammaantooda waayeel iyo qof yarba intaba inaad gacan iyo garab u noqotaan meesha ay ku soo ordaayeen u noqotaan akhlaaqdiidina ay ilaalisaan waxa ugu daran oo annaga aad la nooga la dardaarmo ka wasaarad ahaan waxa waaye akhlaaqda ciidanka danab aad ay akhlaaq badan tahay waxa la idinka rabaa akhlaaqda inay ilaalisaan sida hore loo ilaalinay in loo ilaaliyo meesha ay joogtay meel ka sii fiican in la gaarsiiyo ciidana waa arrin muhiim ah oo cibaadada iyo maaragta salaada iyo cibaadada Ilaahay in la ilaaliyo akhlaaqdana la ilaaliyo daraagiska iyo waxyaabaha badan oo mararka qaar kood dhalinyarada Soomaaliyeed lagu xandana aanan la idin soo dhaxgelin oo aynan dhagihiin u furnaanin aad u mahadsantihiin